السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وإن سلامي وولاشين هداية حسن channel كايقا داونيسان وهداية حسن كسو دوادا إن برنامج كعوضة عن رو إنان كهضلو أو إن الوداقو كسو دوادا أخياري لاق نوصارة وحبيدن كمرد بيسا لعق ماهن وحالا إذن كجرنا أي ملهن إن مركا وحاد الله يا أصحابي سوري دوادا waxaan idin leeyahay channelkeena like subscribe-ka qofka subscribe oo soo ahayn waxaan leeyahay subscribe garee like noode comment qurux badan ka bixi caawa laba arrimood aan rabaa inaan ka hadlo haduu ilaahay awood badan ka raal noqdo labadaas arrimood waxaa waaye maadaama shabcaan uu gabaabsi yahay bishaan qeyrkeeda tii noo reebta Allah ka dhigo إن شاء الله oo gabaabsi yahay shabcaan waxaan leeyahay Ramadaan uu soo gelayo horta asxaabteyda akhyaarta igu xiran channelkayga iyo channel kale oo kale aan daawado oo jiraan oo aan ku xiranahay marka waxaan idin ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed familiadeyda qaraabadeyda waxaan ka codsanayaa inta i taqaano inta jiraankayga intii maxaa la dhahay carabkayga oo gaaray waxaan ka codsanayaa inay iska cafiyaan waxaan ka dalbanayaa cafis waxaan leeyahay iska cafiya maadaama camalka la qaadayo bisha Ramadaan aan u baahanahay in Ilaahay aanu afkayga xiran camalkayga loo gudbiyo cidna aan uqdad u qabin cid maxaa la dhahay aniga aan uqdadeysnaynin qof ii uqdadeysan ayna jirin oo ummadda Nabi Maxamed ii cafisay aan u baahanahay haduu Ilaahay ka raali noqdo marka waa codsi waa baryo qofka carabkayga uu gaaray inuu iska cafiyo ayaan ka dalbanayaa insha Allah mawduuca labaad waxa waaye akhyaarteeda quruxda badan waxa waaye mawduuca labaad haddii aan haweenahay waxaan sameynaa bisha barakeysan waxaan bedelnaa maacuunta wax lagu kariyo waxyaabo badan ayaan jikada ka bedelnaa alaabaha jikada waxaan rabnaa inaan fiidiyo ka duubno cunto qurux badan soo bandhigno wax badan aan rabnaa inaan maxaa la dhahay ummadda aan la wadaagno laakiin waxaan rabaa inaan taas aan walaalahayga Soomaaliyeed oo muslimiinta ah inaan hal arrin ka dhaho maadaama Ilaahay adiga ku nimceeyay oo ku siiyay afur qurux badan oo ah shay meel aad ku afurto oo nabad ah oo maxaa la dhahay aad habi ku tahay walaalahayna Soomaaliyeed oo dhibaataysan inta aan weelashayna ayagoo waxba qabin jikadeena alaabteeda waxba qabin aan intaan firdhino oo gumaamada ku darno aan kuwa kale soo iibsan lahaynay lacagtaas aan ku cayaari lahaynay oo dadka ugu faanfaanin lahaynay inaan ku caawino kuwa afurka aan awoodin dadka walaalahayna ah oo afurka awoodin aan ku caawino aan maxaa la dhahay ku halbi gareyno ayaga aan siino si qiyaamaha Ilaahay miisaanka noogu saaro oo miisaankeena jig Ilaahay noogu siiyo aan macnaha aan ku caawino walaalaheena afurka awoodin aan ku caawino qof walbo qaraab uu leeyahay wuxuu leeyahay xigtuu leeyahay wadanka shaqo ma lahan dadkaas inaan xog wareysano aan ka caawino afurka aan ka caawino maadaama bil barakeysan ay tahay ajirkeedana uu yahay ajir aad u tiro badan aan ka faa'iideysano inta maacuunteena ayadoo waxba qabin aan tuuri lahayn fiidiyooyin ka soo duubi lahayn alaaba qaali inta soo gadno lacagteena ku cayaari lahayn Ilaahay markuu waxna siinaayo wuxuu nagu fiirinayaa dadka masaakiinta naga hooseeyo oo leebarka naga hooseeyo ku jiro inaan caawinayno oo Ilaahay nagu fiirinayaa marka walaalahayga qaaliga arrinta labaad waa taasa arrinta ugu horeysana waxaan idinkaga dalbanayaa cafis marka walaalahayga inta aniga macnaha waan cafiyay oo ama hadal idhahday ama wax ii geysatay waan cafiyay anigana waxaan ka dalbanayaa ummadda Nabi Maxamed qofkii carabkayga gaaray oo wax iga tabanayso ama wax ii malayso xataa in iska cafiso talabaadna waa taan hadda idin sheegay aan walaalahayna ku caawino inta alaabteena inta qubno kuwa kale soo qaada lahaynay ay waxba qabin lacagtaas aan ku halbi gareyno dadkeena Soomaaliyeed afurka aan awoodin aan ku afurino insha Allah إلهي سبحانه وتعالى خير كان وافجيه
ilaahay subxaana watacaala dembi dhaaf wax walba ha nooga dhigo. waan idin salaamayaa walaalahayga qaaliga, walaalahayga sharafta badan. waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.